saan kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena labaad maanta waa sabti taariikhduna waa 28 maarso qodobada barnaamijka way noo soo socdaan aadka u xiisaha badan balse marka hore waxaynu ku bilaabaynaa barnaamijkii koobaad ee maanta ee subaxnimo waxaynu ku soo qaadanay iyadoo markaa xuutigu ay gantaalo tuureen oo ay Israa'iil ku weerareen waxaan idinku iri General Yahya Sariic isaga noo faahfaahin doona halka ay garaaceen iyo xaaladdu sida ay tahay haddaba goor dhaweyd ayuu soo hadlay General Yahya Sariic isagoo faahfaahin ka bixiyay inta meel oo ay garaaceen iyo hadda kadib xaaladdu siday u socon doonto haddaba wararkii ugu dambeeyay oo faahfaahsan ayaa waxaa qoraya warbaahinta waxa leeyahay xuutiyiinta dalka Yemen waxay sheegeen inay bartilmaameedsadeen koonfurta dalka koonfurta Israa'iil iyaga oo isticmaalay sawaariikh nooca balastiga la yiraahdo haddaba warbixinta way sii socotay waxa leeyahay afayeenka militariga kooxda jamaacada xuutiyiinta Yahya Sariic ayaa soo dhigay video uu kaga hadlayo weeraradii ugu dambeeyay ee ay geysteen oo ay ku qaadeen Israa'iil iyo khasaaraha ka dhashay weeraradaas waxa uu sheegay inay bartilmaameedsadeen goobo xasaasi ah oo cadawga Israa'iil ay ku lahaayeen koonfurta dhulka Falastiin ee xoogga lagu haysto Yahya Sariic waxa uu sheegay howlgalladaasi inay ku bartilmaameedsadeen goobaha kaabayaasha dhaqaalaha Israa'iil waxa uu sheegay inay arrinka kaga jawaabayeen dambiyada iyo xasuuqa ay geysanayso Israa'iil iyagoo kula kacaysa walaalahooda Lubnaan, Iiraan, Ciraaq iyo Falastiin waxaana uu sheegay Ilaahay fadligii in ay ku guuleysteen maanta gantaalihii ay ku rideen meelihii loogu talagalay inay ku dhaceen waxa uu sheegay Yahya Sariic hawshu inay tahay siday ku bilaabatay xaaladuna hadda ay socon doonto way marka sheekadaas marka halkaas ay maraysaa xuutiga wuxuu leeyahay haddaan bilowno anaga sheekada hadda bilowno dhiig cusub ma maqli jirtay dagaalka Iiraan iyo Xisbullah ay wadeen bisha dhiig cusub soo galay rag cusub oo caaboon soo galay maxay ku soo aadeen marka raggan waxay ku soo aadeen Israa'iil oo tacbaantay naftu hayso oo Iiraan iyo Xisbullah ay jugta ka geliyeen gantaalihii ay wax ku difaacayeen ay leedeen oo baaba'een oo wax yar ay ku dagaalamayso xuuti oo caaboonna waa u yimid haddaba marka maxaa dhacay aanadi tusoo wararka laga qoray Israa'iil xaaladda ay ku sugantahay haddaba warbixinadii ugu dambeeyay warbaahinta waxa leeyahay Israa'iil waxay sheegtay inaanay awood u lahayn ka hortagga sawaariikhda ka imanaya Iiraan waxaa jira la leeyahay oo ay markaa dareemaysaa Israa'iil nuqsaan ama yaraan aad u badan oo dhanka rasaasta ah oo ay isaga difaacayso gantaalahaas sida ay qoreen qaar ka mid ah warbaahinta Israa'iil iyo kuwa Mareykanka haddaba marka waxaa la sheegayaa jariirada la yiraahdo Wall Street Journal inay warbixin ku saabsan arrintan ay ka hadashay waxaana la sheegay in Israa'iil ay hadda tabar daraysay way waxyaabaha la yaab kale waxa ka mid ah sawir soo qaaday sawirka hadda warbixinta ku jira waxa way gantaalihii maanta la soo riday way gantaalkii marka ma ah u fiirsadaya sawirka waa la sharaxayaa nin khabiir oo sharaxaya sawirka waa idin soo saaraya meesha marka waxa leeyahay sawirkaasu gantaalka markuu dul yimaado hawada marka uu isfidinayo oo madaxyadu ay kala baxayaan inta gadaala oo soo harta meelay iskaga dhacday way macnaha madaxyadii qarxay wixii way baxeen fuuqa rasaasta ma garanaysaa rasaasta fuuqeeda dambe oo iska tuuro fuuqiga wuxuu baabi'iyay guryo 10 camal albaabi waa la iska cuskada bas fuuqa wuxuu iskala egyahay hal guri hor waxa gantaalo baxay waxa baxay Israa'iil waxa lagu garaacay wax caadi ma waxa lagu leeyahay ma aha hataa kuwii loogu talagalay inay qarxaan ma alaabtii ka soo dhax baxeen
qolofkii waa qolofkii fuuqii rasaastoo kale waa ayaa lagu leeyahay marka baalkii oo meel ku tiirsan oo guryo badan baabi'iyey sawiradiisa la soo qaatay marka waxa leeyahay nimanku tabardarradu way ku sii xoogaysanaysaa waxa ay maalmahan weerarada cirka u xoojinayaan meelaha nuclearka weerar xagga weerar u leeyihiin inay iiraaniyiinta mashquuliyaan ay rabaan xaggan tabar jirin tabar wax isaga difaacaan ma jirto way furan tahay gadaal way furan tahay maqli jirtay marka nimanku gadaala furan markii lagu rido way xaroorayaan marka halkaanay ku haynayaan ku mashquulinayaan halkan garaac waxaas ma celinay إيران قاتل لقى جوج حزب الله يا قاتل لقى جوج حوتي أو كسر درسوم شكله مركز الكاسي مرسا وحشوه كله أن دينها يا ور عصب وزنا كسابسن مركب مريكن كلية هي إن لجراعي مات ورت الساعة دي رصور عفي وحل وريتني فيديو كسابسن مركب كي أبراهام نيو كولينال أو لجراعي أو دبكه العيو فيديوغاس marka الجزيرة waxay raadeen qolooyinka khubarada ah ee AI waxaan ka fiiriya ayaan baaray waxa la soo ogaaday video aan jirin inuu yahay oo macnaheedu oo la wareejinay oo macnaha video aan jirin oo sawirkii baalkii markii la isku fiiriyo xaqiiq ma ahayna le qaar marka doodaya waxay leeyihiin video waa laga badbadiyay laakiin waa jiraan nimankan jugta asagoo ku dhacday meel ka gubanayo way jirtaa marka videogaasaa jiray laakiin kan waxaas maba qusayaba markab sahay u siday sahay ayuu wuxuu u siday maraakiibta joogta badda sahaydoodu waday sahaydu wax kastee noqon kartaa cunnay noqon kartaa rasaasay noqon kartaa sahayo u waday asagoo sahay u wada oo Cumaan dekedeeda Salaala ka baxaya meesha inuu marar raba oo maraakiibtii u socda ayaa waxa loo diray 3 daroon way ku xaroodeen asagoo gubanaya ayaa lala carraalay haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyay ee laga qoray markabkaas haddaba ciidanka Iiraan waxay sheegeen inay bartilmaameedsadeen markab Mareykanku leeyahay kaasoo ku sugnaa meel ku dhow dekada saldanada Cumaan ee liiraado Salaala marka waxa la sheegayaa markabkaas in markaa halkaa uu ka soo gaaray khasaaro xoog leh uuna ahaa mid ka mid ah maraakiibta iyagu markaa sahayda u wada maraakiibta kale ee Mareykanku ay leeyihiin marka waxa leeyahay markabkaas halkaas lagu qaramsaday marka ilaa hadda wax tafaasiil oo inta ka badan laga ma hayo Mareykankuna kama hadlin kulay way ka hadli doonaan ilaa saacadaha soo socda markabkan Iiraan ay sheeganayso inay halka ku dubatay markabkaas halkaas lagu dubtaa isaga hadda hawshaas halkaas maraysa waayahay waxaan maraynaa marka waxaan u gudbaynaa weeraradii ugu dambeeyay ee dhacay saacadihii la soo dhaafay nimanka sida loo garaacay iyo iyaguna waxa ay sameeyeen iyagu waxay leeyihiin bunya taxtiya wax la yiraahdo kaabayaasha dhaqaalaha meelaha aan ka burburinay saacadii la soo dhaafay Iiraan magaalada Tahraan iyo meelo kale aan garaacnay leeyahay Iiraan iyaduna hadday war soo saartay marka aan tuso intii aynu kala maqnayn wixii dhacay ciidanka Iiraaniyiintu waxay sheegeen inay bartilmaameedsadeen saldhigyo Israa'iil ay leedahay oo ku yaalay Tel Aviv iyo magaalada la yiraahdo Haifa la yiraahdo sabtida maanta ayaa la sheegay diyaarado daroon ah in markaa ay bartilmaameedsadeen xarunta istaraatiijiyada dagaalka elektrooniga ee Israa'iil in markaa diyaaradahaasi ay burburiyeen waxa sidoo kale la burburiyay raadaarada Israa'iil meel ay yaaleen dekada Haifa iyo goobo kale oo lagu kaydinayay shidaalka saldhigga la yiraahdo Bangorion ee isaguna dhinaca cirka ciidamada ay leeyihiin ee magaalada Tel Aviv ku yaalay intaas ayaa la weeraray warbixinta kale ee cusub waxa kamid ah qaraxyo in laga maqlay goordhow magaalada Qudus iyo deegaanka Ramallah ee dhulka Falastiiniyiinta kadib halka markii ay gaareen sawaariiqda Iiraan ay halka gaareen codadka qaraxyo xoog badan ayaa laga maqlay deegaanada Qudus iyo Ramallah waxaana la sheegay in halka ay ku soo dhaceen gantaalo ka yimid dhanka Iiraan sida la sheegay marka way socotaa baash halkan waa la duqeynayaa beel kasta jugta la isku haya haddaba qaybtan ugu dambaysa barnaamijka waxaynu ku soo qaadanaynaa
dowladda Pakistan ayaa martigelisay shir ay ka qayb galeen wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha Pakistan, Saudi Arabia, Masar iyo Turkiga. وسر وحليري وشر مستويه سرّيو دولتهن وحا أي كسمين كران حالة تاغن دولتي عرب تجوكتال وهيا ويابيهن مركا محان كسمين كرنا أريكن باكستان وحي حشيس دفاع على الله هاي سعودي أرابيا حشيس كودو وحو قرية labada dal mid kamid ah hadii weerar lagu soo qaado in dawladda kale ay weerar qaadi karto qaabay wax u weerarta male heshiiskiina waa yaalaa meesha Sacuudiga iyo Pakistan heshiiskoodii ma shaqeynaayo sababtoo ah Israa'iil may la safarayaan oo ay la dilayaan Iran suuragal ma Iran tina waxba kama joojinayso waa la wareera marka meel la iska jira la aqoolay haddaba marka Pakistan marka u yeertay Turkiga iyo kulli wasiiradooda arrimaha dibadda bal meeshaas wixii ay la tahay ay ka soo saari doonaan haddaba markaan ida tusoo wararkii ugu dambeeyay Pakistan waxay martigelinaysaa wada hadallo dhex mari doona Sacuudiga, Turkiga, Masar iyo Pakistan waxaana la sheegay in arinta Iran ay xudun u tahay wada hadallada Islamabad wada hadalladaas ayaa ka furmaya waxa wada hadalladaasi ka qayb galaya wasiirka arrimaha dibadda Pakistan Mohammed Ishaq Dar ninka la yiraahdo waxa soo kale ka qayb galaya Hakan Fidan wasiirka arrimaha dibadda Turkiga waxa ka qayb galaya Faisal bin Farhan wasiirka arrimaha dibadda Sacuudiga iyo waxa ka qayb galaya Badr Abdul Aati oo isaguna wasiirka arrimaha dibadda ee Masar marka arrinka marka waa arrin isku cakiran meeshii wax laga sameey karo marka waxa waa Iran tuna waxay leeyihiin war annaga idinka maba idin weerarayne Mareykanka meesha jooga ama saari kartaan annaga Mareykankana jugta ka gelinayna inaga leex ayagana waxay leeyihiin Mareykanka waddankeena joogaan siyaadada iyo qarannimada waddankeena ku xadgudbaysaa meeshaan xadgudub ma jiraan wayse ma dhowrna annaga waa jugtana lagu hayaa annagana Mareykan aan deynayna male waa tii ugu dambaysa hadda saldhiga ciidamada cirka Sacuudiga ee yiraahdo Amir Sultan oo maartay lagu qaramsaday ciidamadii Mareykanka shalay Jimcaha marka sheekadu marka halkaas ay maray kula kaas wixii ka soo baxay waa arki doonaa kula wax weyn oo ka soo bixi doono aan ahayn waxay leeyahay khubaradu baaq aan ahayn in nabad waxan looga hadlo oo arinta Mareykan lala hadlo oo maartay lala hadlo nimankan Iiraaniyiinta intaas ka soo bixi doonta taasna Trump u jooga Trump meel loo raaca laba yaqaan ugu leeyahay Trump ninkii inta meel soo istaagay ka hadlay waaye wuxuu rabo wixii la qarinay xataa uu sheegay markabkii weyna in afarta barjiha looga yimid oo nagta laga saaray xataa ninka ku hadlay waaye ayay Mareykankii ayaa ninka muxuu ku hadlay haddaba marka barnaamijkaygii